marnabaha ka quusan wax aad si dhab ah u rabto way adag tahay in la sugo, laakiin waxaa ka sii daran oo ka sii adag inaad ka shallaaydo. goortii aad aqbasho qof, waxaad aqbashay wixii ay horay u soo mareen oo dhan, sidaa darteed dib ha u soo gocan, hana u adeegsan. goortii aad qof necbaysato ama aad nacdo, wax kasta ooy sameeyaan waxay noqonayaan kuwa kaa xanaajiya, haddaba ha gelin niyaddaada wax nacayba. aargoosiga ugu wanaagsan waa inaad horay u socoto, cafiso oo iska ilowdo, kuna dadaasho inaad guulaysato. marnabaha siin qof qanaacada ah inay ku daawadaan adigoo dhibaatoonaya. 80% dadku way iska aamusaan xitaa kolkii ama markii ay rabaan inay wax yiraahdaan, si ay uga fogaadaan muran qof ay danaynayaan. marnaba si aad ah ha ugu xirnaan qof haddii aysan iyagu sidaa oo kale dareemayn, sababtoo ah jacayl hal dhinaca maskax ahaan ayuu ku baabi'in karaa. dadka qaarkii ma rabaan inay runta maqlaan, sababtoo ah ma doonayaan in dhalanteedkooda la burburiyo. marnaba been ma noqoto run, qaladna ma noqdo sax, xumaanna ma noqoto wanaag, xitaa haddii ay aqbalaan ama rumaystaan dadka oo idil. yaysan ku gelin kalsooni saa'id ah ama yeedadiilo badan goortii qof kugu yidhaahdo waan ku jeclahay. su'aasha saxda ah waxaa weeye ilaa iyo goorma, sababtoo ah sida xilliyada sannadka isu bedbedelaan ayay dadkuna isku beddelaan. goortii iyo xilligii xumaan lagu sameeyo dadka daciifka ah way aargoostaan, dadka xoogganna way cafiyaan, dadka caqliga badanna way hilmaamaan. qofna ma oga halganka aad ku jirto, qofna ma oga murugadaada, qofna ma oga xanuunkaada, laakiin waxay dhammaan ogaadaan oo sii wadwadaan haddaad samayso hal qalad. dadka qalbiga fiican wax badan bay dadka caawiyaan, wax badan bay bixiyaan, si dhab ahay wax u jeclaadaan, haddana waxaa soo gaara waxyeellada iyo dhibaatooyinka iyo mushkilaadka ugu badan, waxayna awoodaan inay ku qariyaan kun dareen oo murugo ah hal dhoolla caddayn oo farxad iyo furfurnaansho ah. mararka qaar dad masaafooyin aad u dheer kaa fog ama kumanaan mayl ayaa ku siin kara farxad aadan ka heli karin kuwa dhinacaaga jooga oo aad kuugu dhow. ha u noqon lalahaade ama addoon shaqadaada, ha ku lumin waqtigaaga iyo fursaddaada wax aadan kuugu jirin, ha ku dayicin daryeelka naftaada madadaalo micno la'aan ah, ha u baabi'in naftaada shaqsi ama shaqo aan horumar ku gaarsiinayn. kama dhigi kartid kumana qasbi kartid qof inuu ku jeclaado. waxa aad samayn karto waa inaad noqoto qof la jeclaado, wixii soo harayna iyaga ayay u taallaa ee u daa. calaamadaha qaangaarnimada dhabta ah waa markii qofku dhibaateeyo kadibna aad isku daydo in aad xaaladooda fahanto iyo waxa ay sidan u samaynayaan, intii aad isku dayi lahayd inaad ka aargoosato. si taxaddar iyo feejignaan leh u dhagayso sida qof uu u hadlo markuu wax kaaga sheegayo qof kale. tani waa sida ay kaaga warramayaan markay dad kale kaala hadlayaan. maalintu inay kuu noqoto mid khayr oo danahaagu kuu wada qabsoomaan waxay ku xidhan tahay subaxii markaad hurdada ka soo kacdo wixii aad ku bilowdo. halkii aad ku bilaabi lahayd inaad Facebook eegto ama email ka jawaabtid ama war dhagaysato, ku bilow allihii ku siiyey fursadda labaad nolosha inaad u sujuuddo, xusto, ku shukrido, aadna ducaysatid. mar kasta oo aadan fahmin dhibta nolosha ku haysata, indhaha isku qabo, neefso, gacmaha kor u taag, kadibna dheh ilaahow waan ogahay in wax kasta qorshahaaga ku socdaan, wax kastana sabab ku dhacaan. ilaahow iga caawi sidii aan uga gudbi lahaa marxaladdan. ha murugoon haddii dad aad abaal badan u gashay kugu jisaaraan ama cadow kugu noqdaan. xusuuso alle oo dadkan abuuray, nimco badan siiyey, ayay in badan ku caasiyeen, aysan addeecin awaamirtiisa. maxaad filaysaa adigoo maskiin daciif ah? waa caafimaadka waxa ah hantida dhabta ah ee ma aha xoogaa dahaba ama lacaga. lacagtu waxay kuu iibin kartaa sariir qaali ah, laakiin kuuma iibin karto hurdo iyo si nabad ah inaad ugu seexato. ku dadaal daryeelka naftaada. haddii adigoo ah nin xaas leh aad is aragto inay aad kuu soo jiitaan gabdhaha iskoolka dhigta, xaaskaaga u iibi dharka iskoolka. biyuhu waa waxa ugu jilicsan, haddana waxay dilaaciyaan dhulka.
waxay dhaqaajiyaan dhagaxaan, waxay dejin karaan maraakiib. Tani waxay si cad kuu tusaysaa mabda'a ah in dabacsanaan iyo deganaan aad kaga guulaysan karto wax aad u adag. sabarku ma aha ilaa waqtiga aad sugi karto, balse waa sida wanaagsan ee aad u dhaqmi karto inta aad sugayso. marnaba ha is odhan way kaa daaheen wixii aad sugaysay ama weligaa ma helaysid. wax wanaagsan ayaa u muuqan kara xumaan haddii dhanka mugdiga ah ka eegto. wax xun ayaa u muuqan kara wax wanaagsan haddii aad ka eegto dhanka iftiinka ah. sida dadku wax u arko ama u cabiro ayaa kala duwan. ha ka caajisin, hana isdhiibin. halganka aad maanta ku jirto wuxuu kuu diyaarinayaa awoodda aad berri u baahan tahay. dhib kasta oo ku soo martay waxay fursad u ahayd koritaankaaga qofnimo. marnaba ha nicin dad kaa masayrsan ama ku ximaya. xushmee masayrkooda, waa dad u arka inaad ka wanaagsan tahay. qofna intuu qabrigaaga soo istaago ma odhanayo wuxuu wadan jiray moobilo qaali ah, waxay lahayd sawirro qurux badan, wuxuu lahaa guri weyn, wuxuu kaxaysan jiray gaari sare. laakiin inta god yar lagu geliyo ayaa lagaa soo dhaqaaqayaa. keliya waxa ku raacaya waa camalkaagii adduun. dadka qaarkii waxa ay la yaabaan ama isweydiiyaan sababta dhibaatada ugu soo noqnoqonayso. ma oga in imtixaanka iyo casharada la soo celceliyo ilaa qofku wax barto ama wax ku qaato. qof miskiin ah ama baahan haddii uu wax ku weydiisto ha ka bakhaylin. sii wax kasta oo aad awooddo. ogow sabab baad ku kulanteen, adiga ayaana lagugu eegayaa in wixii alla ku siiyey aad wax ka bixiso iyo in lagaa soo celiyo ama barakada lagaa qaado. yeelo saaxiib iyo asxaab, laakiin ha ilmaamin dadkii adduunka ku keenay oo ku soo saaray. xasuusnow inay ku sugayso in aad dad koriso, tababarato, heerna gaarsiiso. xiriiri qaraabada, xaq dhowr deriska oo xushmee dadka.